kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janalka Xareed Media waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga mudiirka oo habeenada Isniinta iyo Khamiista soo galayaan aad ka daawataan janalka Xareed Media daawadayaal waa habeenimo Isniin ee soo galayso taariikhduna ay ku beegan tahay 12 bisha Afraad ee Abriil sanadka 2020 qodobada aad ku daawan doontaan caawa barnaamijka bandhiga mudiirka waxaa kamid ah liindhanaanta daawo mu u tahay COVID-19 warbixin ka hadlaysa ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeena sidoo kale daawadayaal waxaan idin haynaa WHO xaaladu waa ay ka sii dari kartaa haddii la khafiifiyo xayiraadaha COVID-19 warbixintaas oo dhameystiranna iyadana waa daawan doontaan daawadayaal sidoo kale daawadayaal waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee cudurka coronavirus ee caalamka intaasi daawadayaal waa qodobada aan ku qaadaa dhigi doona barnaamijkeena fadlan daawada haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir asxaabta nala jaan qaado oo subscribe saar channelka gambalelkana furo muuqaalkana like saar lana wadaag asxaabtaada si aan u ogaano qodobka ku xiisa geliyay fadlan faalo inooga reeb waata daawadayaal markaana barnaamijkeena aynu gudagalaynaa qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa liindhanaanta daawo mu u tahay COVID-19 liindhanaanta iyo dawo dhireedka qaarkeed ayaa meelaha qaar laga soo tabiyay inay wax badan u tareen dadka uu ku dhacay xanuunka coronavirus inkastoo wali aan cadayn dhinaca sayniska ah loo haynin inay daawo u yihiin cudurka dadmarka ah ee dunida ku faafay waxa ugu weyn ee ilaa hadda la hubo waxtarkiisa si cudurkan loola dagaalamo waxay dhaqaatiirta ku sheegeen ka hortagga iyo dagaalka ku aadan sidii loo yareyn lahaa faafitaanka cudurka sidaas oo ay tahay waxaa soo baxaya talooyin badan oo la xiriira sida ay dadka wajihi karaan cudurkan aan wali dawadiisa la helin دكتور محمد محمود علي فوجي oo toos uga qayb qaatay barnaamijka baxayay idaacada BBC da ayaa dhageystay uga jawaabay su'aal ku saabsaneed in liindhanaanta ay daawo u tahay coronavirus iyo in kale liindhanaantu sida guud waa daawo waana vitamin C laakiin ma aha daawo cilmi baaris lagu sameeyay oo dilaysa cudurkan balse way caawin kartaa oo waxay qayb ka tahay waxyaabaha dhisa difaaca jirka ayuu yiri dhakhtarka wuxuu dhinaca kale meesha ka saaray hubaasha in liindhanaanta lagu dhaqan karo gacmaha ilaa hadda ma hayno cadayn dhinaca sayniska ah waxa aan ognahay waa in gacmaha lagu dhaqi karo biyo iyo saabuun oo ilaa iyo 20 ilbiriqsi lagu dhaqanayo haddii aadan saabuunta haysanin ku dhaqo dareeraha jeermis dilaha ah haddii aadan intaas heli karin dambas iyo biyo isticmaal ayuu yiri wuxuu Dr. Fuje ku taliyay in qofkii isaga shakiya xanuunka uu gurigiisa joogo laakiin haddii deegaankiisa laga heli karo xarumo caafimaad oo loogu talagalay coronavirus iyo goobo karantiil ah uu si dhaqso ah oo la xiriiro dhanka kale wuxuu waxba kama jiraan ku tilmaamay dadka qaba fikradaha ah in coronavirus uusan ku dhacaynin dadka muslimiinta ah iyo bulshooyinka ku nool dalalka kulaylaha ah coronavirus ayaa dunida ka soo ifbaxay dabayaaqadii sanadkii la soo dhaafay markii ugu horeysayna wuxuu ka bilowday magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha ka hor inta uusan si degdeg ah ugu fidin caalamka intiisa kale khubarada sayniska ayaa si weyn uga mashquulsan talaalka dawada u ah cudurkan kaasoo la soo sheegay inuu qaadan karo muddo ka badan sanad haddaba maxaa ugu dambeeyay xaaladaha coronavirus isku darka tirada dadka cudurkan ugu geeriyooday caalamka ayaa hadda cagacageynaysa 108,962 ruux wadanka ay dadka ugu badan ku dhinteen ayaa hadda noqday wadanka Mareykanka
waxaana hadda uu marayaa 20,580 dhimasho halka ay ku soo kala xigaan Talyaaniga oo ay ka geeriyootay 19,468 dhimasho iyo Spain oo 16,606 dhimasho ah. tirada guud ee dadka uu cudurkan ku dhacay ilaa iyo hadda waa 1,784,335 qof waxaana ka caafimaaday 405,043 ruux. dhammaan tirooyinkan waxay ku salaysan yihiin waqtiga warbixintan la qoray. sidoo kale Soomaaliya iyo waliba xaaladda coronavirus. dawladda Soomaaliya ayaa maalintii Jimcaha ilaa iyo imika xaqiijisay in 10 kiis oo ay ka mid yihiin qaatiir aan ah kana shaqeeya isbitaalada ugu waaweyn magaalada Muqdisho ay ku biireen dadka uu cudurka ku dhacay ee ku sugan magaalada Muqdisho. tirada guud ee dadka uu COVID-19 kula dhacay Soomaaliya waa 24 ruux. hal qof ayaa ilaa iyo hadda u dhintay, labana way ka soo kabteen. waata daawadayaal barnaamijkeena aynu ku jirnaa markaan qodobkeena kale ee xiga aynu eegaynaa. waata daawadayaal qodobkeena xiga waxa uu noqonayaa WHO xaaladdu waa ay ka sii dari kartaa haddii la khafiifiyo xayiraadaha COVID-19. madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ayaa dunida uga digay in la qaado xayiraadaha loogu talagalay la dagaalanka faafidda coronavirus, isagoona walaac ka muujiyay in xaaladda ay ka sii dari karto haddii ay taasi dhacdo. Dr. Tedros Adhanom ayaa sheegay in dalalka caalamka ay ka foojignaadaan khafiifinta xayiraadaha xitaa inkastoo ay dhaqaalaha saameyn ba'an ku yeesheen xayiraadaasi. Spain iyo Talyaaniga oo ah dalalka Yurub oo sida ba'an u saameeyay viruska corona ayaa haatan labaduba waxay khafiifiyeen qaar ka mid ah xayiraadihii ay ku soo rogeen dalalkooda. guud ahaan dunida waxaa laga xaqiijiyay 1.6 milyan oo kiis halka dhimashaduna ay marayso in ka badan 101,000. Dr. Tedros oo ka hadlayay magaalada Geneva ayaa sheegay in hoos u dhac xanuunka COVID-19 laga dareemay qaar ka mid ah dalalka Yurub. waxa uu sheegay inay jiraan qorshooyin lagu khafiifinayo xayiraadaha kuwaas oo ay WHO kala shaqaynayso dawladaha caalamka, balse ma ahan in si dhaqsiya loogu dhaqaaqo. haddaba sidee Spain iyo Talyaaniga u khafiifiyeen xayiraadaha? dawladda Spain ayaa isu diyaarinaysa in Isniinta shaqaalaha qaar ka mid ah waaxaha dhismaha iyo warshadaha u ogolaato inay dib u bilaabaan shaqooyinkooda. Spain ayaa Jimcihii diiwaan gelisay tirada dhimashadii ugu yarayd muddo 17 maalmood ah, taasi oo gaartay 605 qof sida laga soo xigtay tirkoobkii ugu dambeeyay. tirada dhimashada Spain ee la xiriirta coronavirus ayaa gaartay 15,843 ruux. ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa sii kordhiyay xayiraadaha saaran dalkiisa ilaa 3 bisha May. hase yeeshee ganacsiyo yaryar oo xirnaa tan iyo 12 Maarso ayaa maalinta Talaadada loo ogolaan doonaa in dib loo furo. dhanka kale waxaa aad looga dayrinayaa xuduudaha isu furan, taasi oo la aaminsan yahay in si fudud uu ku faafi karo viruska corona. dalalka caalamka waxay xirteen xuduudahooda, haddana dad badan oo aan laga warqabin ayaa ku qulqulaya xuduudaha caalamka. wadamo badan ayaana digniino ka soo saaray faafitaanka viruska ee aan lagu xakameyn karin xuduudaha ballaaran ee isu furan. bishii March in ka badan 150,000 oo u dhashay Afghanistan ayaa ka soo laabtay Iran oo ka mid ah dalalka uu sida ba'an u saameeyay coronavirus. kumanaan kalena ayaa maalin walba isugu gudbaya. 10,000 oo dheeraad ah ayaa sidoo kale dhowaan ka soo laabtay Pakistan oo ka mid ah dalalka koonfurta Aasiya ku yaala ee uu sida ba'an ugu faafay viruska COVID-19. dalalkaas ayaa la daaladhacaya xakameynta dhaqdhaqaaqyada ka socda xuduudaha aan ammaanka ahayn isla markaana aan sharciyada ka jirin. ilaa iyo haatan Afghanistan oo ka mid ah dalalka uu aadka u saameeyay viruska corona waxaa laga soo sheegay 423 kiis iyo 14 dhimasho ah, balse
qulqulkan ayaa laga muujinayaa walaaca in ay sii kordhayso tirada dadka isku gudbinaya fayraska. marka laga eego tirada dadka laga yaabo inay fayraska qabaan ee ka gudbay xadka, waxaan rajaynaynaa in tirada kiisaska iyo dhimashada ee Afghanistan ay sare u kacdo, ayay tiri Natasha Howard oo cilmiga caafimaadka dunida iyo dagaalada ka dhigta jaamacadda National University ee Singapore. sidee Afghanistan u xakameyn kartaa fayraska? wasaaradda caafimaadka bulshada ee Afghanistan ayaa saadaalinaysa in ilaa 16 milyan oo ka mid ah 30 milyan ee bulshada dalkaasi ay qaadi karaan fayraska, sida ay ka soo xigatay WHO. Wahidullah Mayer oo ah afhayeenka wasaaradda ayaa sheegay in arinta ugu daran ay tahay in ilaa 700,000 oo qof ay u baahnaan doonaan in isbitaalka la dhigo, halka 220,000 oo ka mid ahna ay u baahnaan karaan daweynta qaybta xaaladaha degdega ah. sidoo kale 110,000 oo tirada ka mid ah ayaa u dhiman kara COVID-19. guud ahaan isbitaalada Afghanistan waxaa yaala 1,400 oo sariiro ah gobolka Herat. qiyaastii waxaa yaala ilaa 12 qalabka bukaanada ka caawiya neefsashada ah. Afghanistan ma yeelan doonto tiro badan oo sariiro ah xitaa 10 sano ee soo socda, ayuu yiri, isagoo intaas ku daray in waaxaha caafimaadka ay diiradda saarayaan tallaabooyinka ka hortagga ah. Kabul waxaa gabi ahaanba saaran bandow isu imaatinada bulshada ayaana laga mamnuucay Herat, balse bulshada dalkaas waxay badankooda qabaan xanuuno hore sida qaaxada, kansarka iyo sokorta. waxaa jira ilaa 2.5 milyan oo caruur oo nafaqo darro ay haysato, sida ay sheegtay hay'adda gargaarka ee Save the Children. balse haddii ay xaaladda Afghanistan ay sidaas u xun tahay, maxay dad badan u doonayaan inay dib ugu soo laabtaan? badankoodu waxay ka soo cararayaan xanuunka COVID-19 ee ka dilaacay Iran iyo Pakistan. bandowga ayaana ciriiri geliyay fursadaha dhaqaale. dadka ayaa sidoo kale ka cabsi qaba inaysan halkaas ka heli karin daweyn caafimaad. ra'yiga dadka soo laabanaya ayaa ah haddii aan dhimanayno waxaa fiican inaan dalkeena ku dhimano, ayuu yiri Master Rahimi. khubarada qaar ayaa aaminsan in haatan laga daahay xakameynta faafinta fayraska ee gudaha Afghanistan, waxaana aad u yar caawinaada laga heli karo beesha caalamka oo iyaguba la daala dhacaya fayraska. waata daawadeel markaana waxaynu eegaynaa wararkii ugu dambeeyay ee cudurka coronavirus ee caalamka. masiixiyiinta ku nool daafaha dunida ayaa waxay u dabaaldegayaan ciidda masiixiga ee Easter, inkastoo ay jiraan xanibaadyo la soo rogay oo la xiriira coronavirus, kuwaasi oo horseeday in 100 milyan oo qof guryahooda lagu xayiro. baadiriyaal badan ayaa adeegyadii dabaaldega ku dhex samaynaya gudaha kaniisadaha oo hawanaya. markii ugu horeysay dhammaan gobolada waddanka Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inay musiibo ku habsatay kadib markii madaxweyne Trump uu ogolaaday tallaabooyinka lagula tacaalayo fayraska corona. Mareykanka ayaa wajahaya dhimashada ugu badan dunida oo haatan waxay dhimashada kor u dhaaftay 20,000 oo qof, halka nus milyuunkiis laga xaqiijiyay dalkaasi. ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa sheegay in saaxiibada uu naftiisa u hibeeyay ay yihiin dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaashii daweynayay kadib markii uu haleelay xanuunka COVID-19. Master Johnson ayaa axadii la soo dhaafay la dhigay isbitaal ku yaala magaalada London, halkaas oo muddo 3 maalmood ah ku jiray qaybta lagula tacaalo dadka ee xaaladooda liidato. madaxweynaha dalka Jarmalka Frank Walter Steinmeier ayaa rajaynaya in marka uu dhamaado coronavirus oo ay nolosha caadi ku soo noqoto inaysan dadku isbedelin oo ay sii wadaan wadajirka iyo naxariista haatan ay isu muujinayaan. xisbiga hayatalada waddanka Kuuriyada Waqooyi ayaa ku baaqay tallaabooyin adag oo looga hortagayo faafidda xanuunka COVID-19. xukuumadda Pyongyang ayaa hore u xirtay sohdinta
ay la wadaagto Shiinaha iyadoo sidoo kale xadiday dhaqdhaqaaqa dadka. waxaa jiray dhaleecaan ka dhan ah sheegashada Kuuriyada Waqooyi ee ah inuusan jirin qof uu haleelay xanuunka dunida halakeeyay ee coronavirus. waa tahay daawadayaal waxaynu isla soo gaarnay guntiyo gabagabadii barnaamijka bandhiga mudiirka. guud ahaan daawadayaal waa inaga intaa barnaamijkii aad kala socoteen Xareed Media. intaan ku kulmi doona barnaamijkan kiisa xiga waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.